وأيوة سنتين وحوالي أنت إذا مش عاد إذا كوي وخلا على سن واحد ما أنت قلتي واحد سوق يعني مدرسة أختي وقدم بيس سياسة دي هذا أنا أنت عن حكم جوجلنا سنة في بركة waxaa ka soo talaabsanay runtii arrimo aad iyo aad xasaas u ahaa una baahnay deganaansho xasilooni siyaasadeed in loogu talaabsado marka maanta fiican ayaa soo gaareen oo rajaynaynaa inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa haddii inaan ku dhammaystirno dalkana u doorasho u dareeno waxaan rabaa maanta inaan runtii caddeeyo inaan musharax u ahay kursiga madaxweynenimo ee 2016 ka dhacay doorashada hadda ka dhacay doonta dalka أفضل سنة يسوس عطا دلق كان وحقوق هاي رنتي إلا دميستر حياوها حتى قوية أما دستورها هذا أما أمنها هذا أما أرماها كلا حق بالشرع إلى قاله سي دلق كان أمر ونقضوا دل أمر الدنك أولا إدريسو إن المال قشته تمادو إن هرمر تابع قال أنا وقالوا وقسمتين ودك waxaa soo maray dhibaatooyin aad u badan runtii marba meel baa taagnaa halkii sano iyo barkii aan anaga hadda xukuumadda haynay waxaan sameynay buug baan ka daawacnay oo adina wadaagi doonaa hadii la yiraahdo inta xukuumadda qabatay waxa socda waxa aqoonsan waayay waxaan si rabaa inaan sheego sanadka kan in yani doorashadan iyo afartan soo socotaba ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasiloon siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabageliyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 hal qof hal doorashadeeda in la gaaro haddii siyaasad isqabsi ay dib kale timaado waxay noqonaysaa 4 sano kaleeto in waxyaabaha qaarkood laga gaaro wuxuu u baahan yahay dalka kan in arrinta wada ogol wax la yani in dadka Soomaaliyeed isku wado si ay furo ugu noqoto amni astaan qaran leh ee dalka kan runtii hanta aan uga maarano uga qoftoono ciidamada shisheeye ee dalka jooga waxaa sanan oo ah amni iyo wala sameyn kara laakiin waxaa markasta muhiim ah dalkan siyaasadiisa inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayeen ee wax wada ogol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumar taabagala si loo helo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta marna بدهاس آذية مرنا إن يعني ذكر حقيقة فكرة خالد كقارقود آذية إن وفر فرصة هنتي مستقبل خوضة كده حقا ندرك كويس أنا جدود وإحنا نقول جدا ندرك ندركنا قوي مستقبل كويس يروح يصدر هنتي وحو مدة سوالية يكونوا جيل كجيل وهنتي كاسين كرا يعني حياة الدنيا كانت تخوار منها waxaan intaas naga taagnaa waxay ahayd siyaasadda anaga dhexdeena ah oo markasta khilaafka imaanayay markastana maaragtay yani meeshii la rabay iyo hadafkii markasta 4 sano ugu talagalay la gaarin sideeda waxay la tahay in khibradda looga baahan yahay maanta in dalka lagu gaarsiiyo hal qof alaad iyo hoggaanka loo baahan yahay in dalka kan amni looga qaaftoomo ciidamada shisheeye iyo lagu gaarsiiyo runtii dhaqaale iyo horumar dalka kan dadweynaha ay ka dhaxalkaan mustaqbalkooda inaa inta wala yahay waqti badan hadda aan kusoo jeedin siyaasadda Soomaaliyeed taasna runtii aan isleeyahay maanta ay ka dambeeyay dilayaan hoggaanka dalka ay ku sugan inaan ummadda Soomaaliyeed isku nahayn karo isku daaweyn karno insha Allah aan gaarsiin karnana hadalka loogu talagalay ee ah doorasho hal qof hal marka waa mahadsantihiin markii madasha aan dhamayno waxaan idin wadaagi doonaa madasha waxa ugu dambeysay ee caawa soo saara 4 maalmood socoto ee soo saaraan kadibna waxaan rabaa mar insha Allah inaan idinku dhan wada shiriyo oo aan barnaamijka buuxda iyo yani hadafyada iyo sida loo gudbiyo 4 sano inaan ayadoo detail ah ama ayadoo tafaftiran aan soo doono insha Allah waa mahadsantiin intaas oo ahayd inaan musharaxnimada ku cadeeyo maanta waana idinka runtii cudurdaaraya waqti aan joogteen aad iyo aad mahadsantiin waqtiga aad siyaasadda ku jirtay fogtahay fursad wanaagsan baa soo heshay wasaare ku noqotay 9 sano waxaad qabanayso ku dhawaad oo maanta la qabataan maxayta dalka kan labadii mar aan soo maray marna wada gudin waqti TFG iyo waxay ahayd maxkamadda islaamiga ah ee heshiiyada ma sahlaneen in laba qolo oo aan dagaal ku kala adkaan
in inta xukuumad ay wadaagaan runtii dadka kan ay gaarsiiyaan siyaasad meeshii loogu talagalay haddiise gaar laga qaadi kara ay gaaraan waqti aad u adag ahaa waxaan filayaa halkaas sano iyo marka ama labadii sano hore aan ahaa rasaarahana runtii inaan labadaas qolo maanta aan mideeyey mataaneeyey dalkana runtii aan ka soo saaray xilli adag haddana sidoo kaleeto laba xukuumadood ayaa iiga horreysay wax badan oo laga gaabiyey annaga markaan imaanay maalintaan imaanay waxaa gacanta naloo geliyey yacni wax laga gaabiyey iyo wax eed ka imaanayso saasoo ay tahay waxaan ka tallaabsanay arrimo badan oo siyaasadeed maadaama hal qof hal cod aan la gaari karin u baahnaa dalka kan inuu wadar ogol laga keeno qaylooyin badan waa dhaceen waxaan ku dadaalnay qaylooyinkaas dhanaan xasilino maanta meesha ay taagan yihiin wax kasta hala sheego runtii waa meel ummadda soomaaliyeed ay ka ambaqaadi karto dalkana ka hagaaga marka waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa waxaa weeye madasha waxyaabo yaryar wey runtii hadda qodobada hale wax weyn maaha wixii badanaa siyaasadeed waa laga soo gudbay waxaasna waxyaabo yaryar oo sixitaan u baahan laakiin arrimihii badnaa laga soo gudbay arrinta ugu muhiimsan oo hadda aan ka hadlayna waa arrinta amniga iyo sidii adigu amniga saldhigga amni loo dhisaysan lahaa marka waa mahadsantihiin marka labaad oo aan soo noqdo haddii leeda ay nala qaybsanay programka ayaan runtii su-aalo idiin furi doonaa program buuxa ee ku wajahan 4 sanana aan isoo fadhin doonaa waa mahadsantihiin